السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركلة السود وهذا أدي هذا ومهتنتين ما أنت وايسنين وأنا طبعا بيش السديدات أغسطس سنة كلبا كون إيه اللحية لباتنك muuqaalkan كان rabaa inaan idin kula wadaago doorashooyinkii hadda toddobaadkii la soo dhaafay dhacay gobolka Tennessee natiijo la yaab leh oo ka soo baxday xildhibaan Republican ah oo bishii saddexaad ee sanadkan yiri muslimiintu uma qalmaan inay Mareykanka joogaan dhamaantood wadamadii ay ka yimaadeen waa in dib loogu celiyaa oo doorashooyinkii Israa'iilka ee Khamiistii ka dhacay gobolka Tennessee looga adkaaday sidoo kalena nin kale oo cadaan ah oo isaguna u sharaxnaa gudoomiyaha gobolka Tennessee isla markaana yiri hadii aan guuleysto masaajida waa ka mamnuucaya gobolka Tennessee diinta islaamkana sidoo kale ayna dadka caabuda ma joogayaan gobolka Tennessee oo isagana laga guuleystay oo looga guuleystayna sidoo kale waan idin la wadaagaya musharax muslim ahaan jiray laakiin isaguna Christian isku bedelay oo doorashadii Israa'iilka ee gobolka Michigan degmada siteedaad musharax waliba Trump oo taageeray oo isagana laga guuleystay laakiin nin tartankaba isaga haray oo musharax kala taageeray ayaa ka guuleystay arintaasina waan idin la wadaagaya iyo doorashooyinka Israa'iilka ee gobolka Minnesota ka dhacaya gudoomiyaha gobolka sanadkan tartan ayaa ka jira kursiga sanadka oo ay banaynaysa Amy Klobuchar oo xisbiga dimuqraadiga ugu sharaxan gudoomiyaha gobolkaasi Minnesota sidoo kale tartan xoogan ayaa ka jira waan idin la wadaagaya Republicanku waxay doonayaan inay gudoomiyaha gobolkaasi sanadkan ay la wareegaan balse markii la soo dhaafay doorashooyin kala duwan oo Israa'iil ayaa wadanka ka dhacay isla markaana barrina doorashooyinku waxay ka dhacayaan gobollo ay Minnesota ay ka mid tahay hadii aan ku hormaro gobolka Tennessee waa gobol Republican isla markaana waxa jira xildhibaan la yiraahdo Andy Ogles oo isagu ku jiray Congress-ka ilaa iyo sanadkii 2023 islaamkana aad u nacbaa ayaa waxa uu la tartamayay nin horay gudiga beeraha ee gobolka Tennessee uga mid ahaan jiray oo la yiraahdo Charlie Hager marka doorashadaasi Trump waxa uu taageeray ninkan la yiraahdo Andy Ogles maadaama Congress-ka uu ku jiray inta badanna doorashooyinka Israa'iilka musharaxa Trump uu taageero ayaa soo baxay laakiin natiijo taas ka duwan ayaa Khamiistii gobolka Tennessee gaar ahaan degmada shanaad oo degmad dhawaan isbedelkii lagu sameeyay degmooyinka gobolada Republicanka la abuuray ahayd ama la sameeyay in ay ka soo baxday marka Andy Ogles oo Congress-ka ku jiray oo Trump uu taageeray ayaa waxa uu helay 46.8% halka Charlie Hagerna uu helay 53.2% 4,000 codad ka badan ayaa u dhaxaysay laakiin ninkan la yiraahdo Andy Ogles oo Republican ah bishii March ee sanadkan 2026 ayaa si kulul waxa uu weeraray dadka muslimiinta ah ee Mareykanka ku nool waxyaabaha uu yiri waxa kamid aha in dadka muslimiinta aysan ba u qalmin in ay Mareykanka joogaan waxana uu sheegay waraaq lagu siiyay kaama dhigaysa ayuu yiri in aad American tahay macnaha dhalashada Mareykanka ayuu ula jeedaa waxa uu yiri dadka muslimiinta ma awoodaan in ay dhex galaan dadka cadaanka ama Mareykanka sidaas darteed waa in dhamaantoodba dib loogu celiyaa halkii ay ka yimaadeen hadalla sidaas la mid ah ayaa xildhibaankan hadda laga adkaaday doorashooyinka Israa'iilka ee Khamiistii ka dhacay gobolka Tennessee oo dadka muslimiinta ah uu ka sheegay marka waxa uu ahaa nin dadka muslimiinta aad u nacab isla markaana rabayba in dadka muslimiinta gabay ahaantoodba Mareykanka laga mamnuuco laakiin waxa la tartami doona November marka la gaaro nin magaalada Columbia mayor uga ahaan jiray oo la yiraahdo Jas Mulder la yiraahdo oo dimuqraadiya ayaa waxa uu la tartami doona November marka la gaaro sidoo kale waxa jirtay gobolka Michigan oo aan ognahay talaadadii hore in Abdul Al-Sayed uu ka soo baxay natiijo la yaab leh doorasho ka dhacday degmada sideedaad ee gobolka Michigan ay ka soo baxday Trump waxa uu taageeray nin horay muslim u ahaan jiray ciidamadana ka tirsanaan jiray oo la yiraahdo Amir Hassan laakiin hadan islaamkii ka baxay oo Christian noqday ninkan waxa la tartamayay markii hore nin oday ah oo la yiraahdo Tim Smith sidaas darteed Tom waxa uu sheegay bishii July ee la soo dhaafay bartamaheedii inuu tartanka isaga haray lacagta olol ahaan uu ururiyana lacag $2,000 ka yar ayay ahayd marka nin sidaas caan u ah ma uusan ahayn marka waxa uu sheegay sidoo kalena in doorashada uu isaga haray lacag intaas la egna uu ururiyay sidaas darteedna musharax kale ayuu taageeray saasay tahay maadaama xilliga uu ka haray magaciisa waraaqaha codbixinta laga saari karin magaciisu wali waa uu ku jiray waraaqaha codbixinta
marka doorashadii waxay dhacday talaadadii 20 dhibcood ka badan ayuu uga guuleystay musharaxii Trump oo taageeray ee Amir Hassan. marka ninkan oo bishii July tartanka isaga haray lacag $2,000 oo lihiisi doorashada ururiyay musharax kalena taageeray ayaaba soo baxay. sidaas darteed Trump waxa uu ku qasbanaaday marka musharaxa soo baxay in uu taageero. marka waxa uu la tartami doonaa November marka la kaado xubinta dimuqraadiga ee hadda kursigaasi ku fadhiso oo la yiraahdo Kristen McDonald Rivet ayuu la tartami doonaa ninkan Tom Smith. Trumpna hadda waxa uu ku qasbanaaday marka in uu ninkaasi uu taageero. gobolka Tennessee inta aanan ka bixin sidoo kale waxaa jiray nin hadda ku jira aqalka wakiilada oo la yiraahdo Monty Freitas oo 63 jira isla markaana asaguna baadari ah ayaa waxa uu u tartamayay gudoomiyaha gobolka Tennessee. marka waxa uu yiri haddii aan gudoomiyaha gobolka Tennessee aan ku guuleysto masaajidda waan ka mamnuucaya gobolka Tennessee diimaha ay ka mid yihiin diinta Islaamka midda Buddhismka iyo midda Hinduuska iyadana sidoo kale gobolkaasi Tennessee waan ka mamnuucaya. sharciyan dastuurka Mareykanku waxa uu ogol yahay in dadku ay xur u yihiin diimahooda in ay caabudaan. marka isaguna sidaasi ayuu doonayay laakiin isaguna kaalinta saddexaad ayuu galay tartankii doorashada Israa'iilka ee gudoomiyaha gobolkaasi loogu tartamayay waxaana ku guuleysatay Marsha Blackburn oo iyaduna Congress-ka gaar ahaan aqalka sanadka ka tirsanayd Trumpna uu taageeray ayaa waxay ku guuleysatay tartanka gudoomiyaha gobolka Tennessee November marka la gaaro. marka labadii qof ee muslimiinta wax ka sheegay midna uu yiri muslimiintu uma qalmaan Mareykanka isla markaana waa in dib loogu celiyaa halkii ay ka yimaadeen. kan gudoomiyaha gobolka u sharaxnaa oo isaguna yiri masaajidda iyo diinta Islaamka gobolkaasi waan ka mamnuucaya labadiiba doorashadii waa looga adkaaday oo ma aysan ku soo bixin. ugu dambeyntii maalinta bari ah gobolka Minnesota doorashooyin muhiim ah ayaa ka dhacaya. gudoomiyaha gobolka ayaa loo tartamaya oo Republicanku ay doonayaan sanadkan inay la wareegaan. waxaa sidoo kale loo tartamaya kursiga ay banaysay Amy Klobuchar oo iyadu gudoomiyaha gobolka dhinaca xisbiga dimuqraadiga ugu tartamaysa. marka kursigaasi aqalka sanadka oo Amy Klobuchar ay banaynayso waxaa ku tartamaya Angie Craig oo iyadu aqalka wakiilada ka tirsanayd ilaa iyo sanadkii 2019 iyo sidoo kalena Peggy Flanagan oo iyaduna ahayd gudoomiye ku-xigeenka gobolka Minnesota ilaa iyo sanadkii 2019. marka ninka hadda gudoomiyaha ah Tim Walz markii uu January uu ku dhawaaqay inuusan mar saddexaad tartami doonin ayaa dimuqraadiyiinta waxa bishii January dhamaadkeedii soo sharaxday Amy Klobuchar oo tiri gudoomiyaha gobolka ayaan u tartamaya. marka Republicanku waxay moololahooda doorashada ay diiradda ku saarayaan musuqmaasuqa iyo dhinaca immigrationka oo aan ognahay gobolka Minnesota in maamulka Trump uu xitaa musuqmaasuq fara badan uu ku eedeynayo. dhinaca Republicanka marka haweeneyda hadda afhayeenka aqalka wakiilada ah Lisa Demuth iyo sidoo kale Mark Lintel oo isagu Trump saaxiibo ay ahaayeen ayaa ku tartamaya. Mark Lintel ayaana horeeya hadda haddii la fiiriyo. marka Lisa Demuth iyo sidoo kale Kendall Qualesna la yiraahdo ayaa isaguna tartanka kula jira oo nin madow ah. marka dadka ilaa 15% weli ma aysan go'aansan qofka ay u codayn doonaan. marka sida muuqata hadda doorashooyinkaasi ayaa maalinta bari ah ka dhici doona gobolka Minnesota oo iyadana si weyn loo sugayo. dhinaca Republicanka ayaa u soo bixi doona November in uu la tartamo Amy Klobuchar oo iyadu dhinaca dimuqraadiyiinta u tartamaysa. marka waa doorashooyin iyaguna si weyn loo eegayo maalinta bari ah natiijada ka soo bixi karta. natiijada ka soo baxdana